waxaan idinku imid inaan idin sheego sida aan runtii idin u qirsannahay kartidiinna iyo dhiiggiinna aad u hurteen dalkiinna gaar ahaan caasimaddii qaranka waxaan rabaa inaan idinka mahad celiyo anigoo wakiilka ah guud ahaan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed sida aad u beddesheen wajigii ay magaaladani lahayd caasimadda maalintaa timaadeen baa ugu dambaysay magaaladan wejigii foosha xumaa waxaad u samayseen weji ka qurux badan kii hore waxaad ka dhigteen magaalo caasimada oo la mid ah caasimadaha adduunka oo nabada ayaad ka dhigteen bilaash kuma imaan waxay ku timid dhiiggiinay ku timid geesinimadiinay ku timid dadaalkiina habeen iyo maalin ay ku timid marka waxaan rabaa inaan idin sheego dadka Soomaaliyeed dawladda madaxda iyo shacabka way idin qirsan yihiin arrintaas askari kasta oo ka tirsan askartan intii shahiiday iyo inta nool waxay noo leeyihiin sumad gaar ah maxaa jira waxay xaqiijiyeen hadafkii ay u yimaadeen hadafkii loo soo tababaray hadafkii qoriga u qaateen hadafkay ku dhaarteen waad xaqiijiseen geesiyaal baa tihiin waad mahadsan tihiin marna waan ku faraxsanahay marna waan idinka ba'ayaa in roobku uu idinku da'ayo laakiin waa naxariis ilaahay baa keenay ilaahay waan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala intay qorrax iyo abaar aan fadhin lahayn in naxariistan uu ilaahayna siiyey waddankan quruxda badan doogga ah roobku ka da'ayo aan barafka lahayn innagaa iska leh ilaahay baa ina siiyey kaasaa laynoo quuli la'yahay kaasay cadowgu inagu soo weerarayaan kaasaa qaraxyadu u dhacayaan kaasaa laysku haystaa idinkuna kaasaad difaacaysaan sharaf baad leedihiin dalkiinaad difaacaysaan ugu dambays dariiqii jannada lagu gelayaad haysaan faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir waxaa idinku jira qaar horay baa u gaadhay ayaga ujeeddadii ay lahaayeen oo janno aaday idinkuna waad sugaysaan marka waxaan idin rabaa inaan anigoo wakiilka ah dawladdoo dhan madaxweynaha salaantiisii golaha wasiirradoo dhan golaha shacabka aqalka sare ummadda Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed intay suuqa kaaraan tagaan magaalada say rabaan u maraan aad ka takhallusteen ciyaal weeradii iyo khawaarijtii iyo burcadii intaba salaantoodii guddooma waa mahadsan tihiin waa la ducaad qabtaan aad iyo aad baad u sharaf badan tihiin sidaan idin sheegayna kulligiin dhammaantiin taariikhda ayaad meel ka gasheen waadna u suntan tihiin ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsan tihiin guul baan idin rajaynayaa ilaahay idankiis iyo waddankeenna oo sidan oo kale wada noqday cagaar nabad roob iyo naxariis iyo inagoo meel kasta isugu nimaadna haddii ilaahay yidhaahdo aad u mahadsan tihiin jazaakum allah khayr waa mahadsan tihiin salaamu calaykum